habeen taariikhdaba ay xusi doonto ayaan ku qaadanay Lusail Stadium halkaasina kaliya kuma dagaalamin Argentina iyo Faransa oo u wada socday ku guuleysiga Mundiyaalka adduunka waxa isku helay laba ciyaartoy oo midba midka kale marna uu socday inuu isku qoro buugga taariikhaha ee qarankiisa marna ka dhax arkayba kulankan inuu yahay kii uu ku haran lahaa ku guuleysiga abaalmarinta xidignimada dunida وانا ويلكا حف iyo xariiftankaba ku mirdaboolay difaacyadii Argentina ee Mbappe iyo gaabkii mucjisada badnaa ee Lionel Messi ama walay dooran ama dadku qaadiyeen markastaba Argentina iska waxay yeelanayeen goolka hore ee kulankan Messi wuxuu dhaliyay laba kamida goolashaasi isagoo 35 sano jira isla markaana ay u raacdo 177 maalmood wuxuu noqday ninka ugu da'ada weyn isla markaana laba gool ka dhaliya final Cup adduun labadani gool sidoo kale Messi waxay ugu dhignayd inuu ku noqdayba laacibkii ugu horeeyay ee tartamada ugu waaweyn dunida ka dhaliya 26 gool isagoona dhaafay Ronaldo weynihii reer Brazil dhinaca kale taariikhda waxay noo sheegaysaa goolkii labaad ee Messi uu ka dhaliyay xulka Faransa inuu noqonayayba midkiisii boqolaad uu ku dhalinayo xirfadiisa ciyaareed lugta midig difaacyada Faransiiska oo xamili waayay mujadaha weerar ee culayska badnaa isla markaana ka imaanayay weerarkii Argentina xitaa gool kale waxa ka dhaliyay oo quruxdiisaba loo riyaaqay bidixlii inta uu ku jiray garoonka baasha ka jafayay ee Angel Di Maria oona sida ku noqday Argentina iskii ugu horeeyay ee taariikhda gool ka dhaliya finaalada koobka adduunka Copa America Finalissimo iyo waliba Olombikada dunida Faransa iyadana Argentina waxay dheereyd wiilka tilaabada dheer ee nuuciisa oo kale aan laga soo helaynin dunidan ee Kylian Mbappe waxana uu noqday kadib markii saddexley gool uu dhaxdhigay shabaqii Argentina laacibkii labaad ee awood u yeesha final Cup adduun inuu ka dhaliyo saddexley gool kadib halyaygii reer England ee Horasti oo 3 gool ka dhaliyay Jarmalka 1966 Kylian Mbappe sidoo kale goolka wuxuu ugu dhignaa inuu yahay midkiisii afaraad uu ka dhalinayo finaalka Mundiyaalka adduunka waana in ka badan ciyaaryahan kasta oo taariikhda tartankani ka soo muuqday waqtigii loogu talagalay iyo kii lagu darayba ciyaartan labada dhinacba waxay isla dhaafi waayeen barbadhac 3-3 laakiin ugu dambeyntii xulka qaranka Argentina waxay ku baxsadeen sacabada goolhaye Emiliano Martinez waana geesi la dhici karaba waa uu mudan yahay in taalan looga taago dalka Argentine waayo xulka Argentine ayaa soo afjaray habaar kaga habsadayba ku guuleysiga Mundiyaalka adduunka tan iyo 1986 waana markii saddexaad oo Argentina ay ku guuleysanayso koobka dunida rigorayaashiina 4-2 waxayba guusha ku raacdayba xulka Argentine waxana meel wacan xulkani kaga soo baxay goolhaye Emiliano Martinez Messina waa uu dagaalamay ugu dambeyntiina waa uu rumeeyay rajadii dadyowga reer Argentine